بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عشر كانوا مانتا وحكب اللابنا يا آيات كوية طبنات سورة البقرة كمدة. آياته هراء إلهي سبحانه وتعالى وحونا وقت المامي سفوين أما تلماما أيليهين قيب تصدحات dadku ay u kala baxeen habdhaqankooda markii la fiiriyo waxaan soo marnay qaybtii koobaad oo ahaa mu'miniinta, qaybtii labaad oo ahayd gaalada, iyo qayb saddexaad oo labadaas midna aan ahayn ee u dhaxaysa oo ilaahay uu ku tilmaamay mudabdabiina bayna dhalika la ilaha ulaa'i wa la ilaha ulaa, waa kuwa ku noqnoqonaya ama u dhaxeeya labadaas qaybood. kuwaas mu'miniinta ana kama mid aha, kuwa gaaladana kama mid aha, meel dhexe ayay joogaan. magacoodana waxaa la yiraahdaa almunaafiquun. markii sifooyinkooda ama tilmaamahooda la soo xusay ayaa aayadahan ilaahay wuxuu inoogu xusayaa falalka ay sameynayaan foolxumadeeda, iyo markii la waaniyo oo la isku dayo in laga celiyo xumaatada sida ayna u ogolayn iyo waxa ay ku jawaabayaan. وإذا قيل هدي la yiraahdo lahum ayaga hadii loo yiraahdo لا تفسدوا في الأرض dhulka ha fasaadinina, dhulka ha xumaynina hadii la yiraahdo qaaluu waxay dhahayaan innamaa naxnu annagu muslixuuna kuwa wanaajinaya ayaan nahay. yacni mar walba siraaca ka dhexeeya xaq iyo baadilka, dadna baadil ayay ka shaqeeyaan, dadna xaq ayay ka shaqeeyaan, loolan ayaana u dhaxeeya. kuwa wanaaga ka shaqeynaya waxay diidan yihiin dhulkan ilaahay uu abuuray, waxa ilaahay uu diidaayo in lagu kor sameeyo. maxaa yeelay haddii dembiye lagu sameeyo dhulka korkiisa, dhulku wuu xumaadaa, barwaaqadiisu abaar ayay isu bedeshaa, caafimaadkiisuna cudur ayuu isu bedelaa, dadkiina way ku wada nool yihiinoo haddii dhibaato ay soo degto midka fiican iyo midka xunba waa ay ku wada dhacdaa. waa tii la yidhi haddii balaayo ay soo degto tacumu saalixa wadaalixa, ka wanaagsan iyo kan xunba way isla gaaraysaa. marka si aan dhibaatadaas dadka in u wada gaarin ayaa dadka mu'miniinta waxay u taagan yihiin haddii ay arkaan cid xumaan samaynaysa oo dhulka bi'inaysa ama xumaynaysa inay ka celiso waaniso ku tiraahdo dhulka ha inaga xumayn, maxaa yeelay dhibaatada ka dhacda waa in wada saameynaysaa. marka xumaatada joojiya. haddii munaafiqiintu oo hawsha ay haayaanba ay dhibaato ay tahay, maxaa yeelay ilaahay in si sax loo rumeeyo ayaa la isku ogaa inay si sax u rumayn waayeen oo ay jilayaan iimaanka oo afkiina ay ka sheegayaan inay mu'miniin yihiin, habdhaqankooduna uusan iimaan ahayn, dhulka ayaa ku xumaada. mu'miniintuna taas ayay diidan yihiin. haddii ay ku yiraahdaan marka war iska daayo xumaatada, qaaluu waxay dhahaan kuwa munaafiqiinta ahi innamaa naxnu annaga waxaan nahay muslixuuna kuwa wax wanaajinaya ayaan nahay. alaa innahum ayagu hum ayagu almufsiduuna kuwa fasaadin dhulka ayay ahaadeen, walaakin hase yeeshee laa yashcuruuna ma dareemayaan. yacni qofku markuu xumaado qalbigiisa ayaa dembiyadii uu galay sababteeda ayaa loo mugdiyeeyaa oo dhibco madow ayaa lagu tifqiyaa ilaa marka dambe asagoo dhanba uu ka madoobaado. markuu qalbigu madoobaado wixii wanaag ahaa ma arkaayo oo wanaagii ayaa laga daboolayaa. xumaatadii qofka qalbigiisa uu nuuraayo iftiimaayo u muuqatay ee xumaatada ahayd ee mu'minku uu dareemayayna kan munaafiq ah dareenka laga qaadayaa oo xumaatadii ayaa la fiicnaanaysa. afaman zuyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa inna allaha yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa. qof loo qurxiyaa li amalkiisa xun ayaa loo qurxiyay, markaas wuxuu u qaatay inuu wanaagsan yahay. maxay la damiirkii uu ku dareemi lahaa xumaatada ayuu ilaahay ka masaxay, markaas xumaatadii ayaa la fiicnaanaysa. munaafiqiinta markii la yiraahdo dhulka fasaadinina, ayaga oo ilaahay uu ku qiray inay dhulka fasaadinayaan oo dembiga ay sameynayaan dhulka uu ku fasaadayo, ayaa haddana ayaga waxay la tahay falkan ay sameynayaan inay maslaxad iyo wanaag ay ka shaqeynayaan. habkaas ayay u arkeen wanaaga, laakiin xaqiiqada sida caadiga markii loo fikiro oo la fiiriyay falkoodu fal wanaaga ma aha, waa fal xun laakiin dareenkii ay wanaaga ku dareemi lahaayeen ayaa ka maqan. marka alaa innahum ayagu hum ayagu almufsiduuna kuwa dhulka fasaadin ayay ahaadeen,
ولكن لا يشعرون لكن سمدري ما إني فساد وضان وما هيستانه وحي وهيستان إني وناك شقين عيان لكن ودنسيهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل هدي لو يرى هذا اللهم أيها آمنوا رمايا كما آمن الناس سيدا ضدك أي أرميان ضدك مؤمنين تاع حق يعني سفي عن أرميي حبك أرميان أي حقيقة سيداس أو كلا وأرميا هدي لي هذا لأن أيها الرمين توضا iyo rumaynta loo baahan yahay ee mu'miniintu ay rumaysan yihiin ee tilmaamihii aan soo marnay mu'miniintu ku sifaysna aan soo sheegnay alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah yani sifooyinkii wanaagsanaa ee mu'miniinta ee dhabta ahaa ee iimaanka fiicnaa ahaa habkaas uu ilaahay aqbalaya oo rabaaye hadii loo yiraahdo sidaas wax u rumeeya ee sidan idinka aad u shaqada ka haysaan ee dhanna aad mu'min ka sheeganaysaan dharna aad gaala ka tihiin oo qalbiga gudaha aad ka jirantiin intaad iska daysaan sida mu'miniintu ay u rumaynayaan ilaahay u rumeeya. وإذا قيل اللهم هدي لو يرى هذا آمنوا رمايا كما آمن الناس ضدك السيء الرمايان وكلا الرمايا هدي لو يرى هذا قالوا حيدها المنافقين أن نؤمن من رمينا كما آمن السفهاء كوا ما نجاب كا عقل غير سيدا أي وحور رمايان وكلا يعني حيكسوا قاضي عند ضدك مؤمنين تعهي ضد عن ضمت هذا الجرنين والسفهاء سفيه وحالها وقفك يعني للسرايو sida sahlan loo jeedin karo ama loo doofsan karo waxay ka soo qaadeen mu'miniinta sida dhabta ilaahay u rumeeyay dad maangaab ahoo hadalla aan laga fiirsanin iska raacay laakiin ay waxay soo haystaan munaafiqiintu dad raganimadu ay ka badatay oo aqli badan oo hadalladan hadda loo sheegayo intay fiiriyeen korna waayahay ka yiri hoosna ka diidan sida ugu fiican ay tahay in loo dhaqmo ay tahay saas ayay u qaateen markii leeyahay war sida sax ma aha sida saxda waa in si dhab ah ilaahay loo rumeeyo mu'miniintuna saas ilaahay u rumaysan yihiin ee idinkuna sidaas oo kale u rumeeya waxay dhahayaan dadkan aad naleedihiin ku dayda soo dadka maangaabka hay raaca wixii la sheegay iskala boodaya ayagoo aan ka fiirsanin sidaas miya iimaana taas anagu ma yeelayno waa sufaha dadkaas waa maangaab laakiin anagu indheer garad baanaho meel fog ayaan wax ka fiirinaynaa saasana waxaa noo soo baxday habka hadda aan u dhaqmayn inaan u dhaqano ee habkaas dadkaas ay u dhaqmeen inay tahay hab maangaabnimo ah sidaas ay mu'miniintii iyo iimaankii fiicnaaba ay u arkeen waxa la yiraahdaa hadii loo yiraahdo wayda qila lahum hadii la yiraahdo aaminu rumeeya kama aamana an-naasu dadku say u rumeeyeen oo kale qaalu waxay dhahayaan an nu'minu ma rumeynayna kama aamana as-sufahaa'u maangaabku suu wax u rumeeyay oo kale miyaan u rumeynayna ilaahi ba u jawaabay wuxuu yiri ala innahum ayaga ayaa hum ayagu as-sufahaa'u kuwa maangaabka ah ee aqliga daran ee waxba aan garanaynin waa ayaga walaakin hasa yeeshee la ya'lamuna aqoon male wanaaga iyo wanaag darrida ayna kala garanaynin dabaalnimada ama safiihnimada iyo aqliga iyo indheer garadnimadana way isaga dhaxdarsantay markaasa wixii xumaatada ahaa ee doqonnimada ahaa ayaa la fiicnaaday maxaa yeelay ruuxu laba mid inuu yeelo ayay ahayd inuu sida mu'miniinta si dhab ilaahay u rumeeyo oo la yaqaan waa la gartay inuu sida gaalada banaanka istaago oo yiraahdo aniga waxaan ma yeelayo ayaduna waa wax la gartay laakiin waxaan xaggana ahayn bal adu waa kaas magac u bixi haddana saas ay tahay waxay leeyeen aqli badnina annaga ayaa ugu fiicano sidaas ayaan dadkii u sirnay xaggana ma jirno saas ayaan nahay marka taasi war ma aha aqoon ayaysan lahayn waxayna kala garanaynin qofka safiiga ah iyo ka wanaagsan ma kala yaqaanaan ala innahum ayaga sufaha ay ahaadeen walaakin hasa yeeshee la ya'lamuna ma garanayaan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا sifooyinka munaafiqiinta afcaashooda xun iyo waxyaabaha ay ku dhaqmaan waxa kamida وإذا لقوا haday la kulmaan الذين آمنوا kuwa mu'miniinta hadii ay munaafiqiintu ay intay u yimaadaan ay la kulmaan qaaluu waxay dhahaan munaafiqiintu aamanna waan rumaynay yani mu'miniinta ay iskala mid dhigayaano si mu'miniinta ayna waxba u dhihin oo ina dhihin waad xuntiin oo khaldantiin oo waxa iska daayay oo munaafiqiinta iska daayay ama gaalnimada iska daayay aan loo dhihin hadii mu'miniinta ay la joogaan way jilayaan iimaanka oo mu'miniinta ay waxay ku leeyihiin sida aad wax u rumaysan tihiin ee fiican ayaan idin lanahayo mu'miniinta ayaan ku jirnaa wayda laquu haday la kulmaan alladina aamanu mu'miniinta hadii ay la kulmaan qaaluu waxay dhahaan aamanna waan rumaynay markay saas dhahaan oo mu'miniinta ay la joogaan oo mu'miniinana ay ku haayaan markii la kala tago oo qof walba meeshiisa uu ku laabto munaafiqiintani ilaa mu'miniin dhab ama ahaan afku bay ka sheegteen gaaladii ayay is arkayaan markaas waa la is wareysanoo maxaad meeshii kala soo kulanteen oo mu'miniinta maxaad ku qaabisheen ayaa la weydiinayaa wa idha khalaw marka haday gaar noqdaan ila shayaatiinihim shayaatiintoodii haday u gaar noqdaan
يعني قالدي أي منافقين تؤتجاين أي وحال لقى عبري أما لقول المامي إن الشياطين أيهين شيطانكو ومثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليرهدو midkaas qarsan in la arkaynin ee dadka waswaasiya mid kale waxa jira dadka kamid ah oo la arkaayo oo ka hor imaanaya oo shaydaan caadi ah oo af Soomaali haduu rabo ku hadlaayo haduu rabo Carabi ku hadlaayo oo dadka carabta ana shaydaan Carabi ku kula hadlaayo oo ayaga oo kala yaani qolo walba ku ayaga kamid ah oo shaydaan ayaa jira oo dad ah waaya shaydaankaas lagu gartaa waxa lagu gartaa shaydaankan kale ee aan la arkaynin ee jinniga ah qarsan tilmaamaha uu leeyahay ayuu asna leeyahay shaydaankaas waxa lagu yaqaan oo tilmaamihiisa kamid ah ilaahay amarkiisa ayuu diiday dadka ilaahay amarkiisa qaadanayana uma ogolo oo waswaasinaya marka hadii aad aragtid ruux bin aadam ah oo asagu aan fiicnayn oo jidka ilaahay ka leexday isla markaasna dadka jidka ilaahay ku toosani wax ka sheegaya oo raba inuu wadadaas ka soo leexiyo shaydaan inuu yahay kaas oo maxay yeelay shaydaannimadu waa amalkaas xun oo la sameeyo amarka ilaahay oo la qaadan waayo isla markaasna dadkii qaadan laha laga hor istaago taas ayaa shaydaannimo ah sidaas ilaahay wuxuu yiri shayaatiina al-insi wal jinni yuuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl marka munaafiqiintu waxay u tagayaan shayaatiintoodii yaani kuwa dad ah oo gaala ah oo shayaatiin oo amarka ilaahayna diiday dadkii amarka ilaahay qaadan lahana u diidan bin aadam baha ahaadeen haday rabaane laakiin sifooyinkii shaydaanka laga helay ayaa markay u tagaan oo ayaga isla keli noqdaan oo munaafiqiinta iyo gaaladii oo kaliya isku soo haraan wayda khalaw haday gaar noqdaan ila shayaatiinihim qaaluu waxay dhahayaan inna annagu ma'akum idinka ayaan idin la jirnay hadaad gaalatihiin idinka ayaan isku mabda'nahay idinka ayaa toosan sidaas ayay dhahayaan waayay soo idinkii hadaay muuminiinta markaad la joogteen laha muuminiinay waa idin la jirnaa sidiina wax u rumaysanahay soo idinkii laha haddana marka idinka idin la jirnaa ayaad gaaladii leedihiin waa maxay hadalkaas hore idinka baxay ee aad muuminiinta kula haydeen iimaan ayaan leenahay markaas waxay dhahayaan taas ma ayada mushkil leh inma nahnu annagu waxaan ahayn markaan warkaas ku hadlaynay mustahzi'una kuwa ku ciyaaraya ama ku jeesjeesaya ayaan ahayn muuminiinta ayaan yaani waxaan ka dhigaynay wax lagu ciyaaraan ka dhigaynay waa dad inaan sirna aan rabnayo afkana waxaan ka leenahay waan idin la jirnaa muuminiin ayaan nahay intaas ay naga rumaysanayaan sidaas ayaan marka aan ugu talagalnay inaan ugu ciyaarno oo u jeesjeesno laakiin haddii rabtiin in xaqiiqadeena aan idin sheegno sida dhabta ah idinka ayaan idin la jirnaa idinka ayaan nala quman idinka ayaan nala toosan hadaadna aragtaan annaga oo muuminiinta kule muuminiin ayaan nahay run ha u qaadanin idinka in la jirnaaye ee muuminiinta ayaan ku jeesjeesaynaa oo aan ku siraynaa hadalkaas aan kor un ka leenahay qulubta gudaha iyo waxa aan aaminsanahay xaqiiq ahaan markii la fiiriyo idinka ayaan idin ka mid nahay inma nahnu mustahzi'un waan ku jeesjeesanay muuminiinta sidaas ay dhahaan marka hadii ayagu ay saas u maleynayaan inay ku qarsoomayaan ilaahay ayaa fadeexaynaya waxa ay yihiin uu sheegaya jeesjeeska ay sheegayaan le muuminiinta ayaan ku ciyaaraynaa ilaahay ku jeesjeesaynaa kood waxba ka dhibi maaye ayaga ayaa khaldan ilaahay ayaana ka aaraay arintaas ay sameeyeen markaas ilaahay wuxuu yiri Allahu ilaahi ayaa yastahzi'u bihim ka abaal marinay jeesjeeskooda yaani ilaahay ayaa ku jeesjeesaya lama yiraahdo maxaa yeelay jeesjeeska waxa sameeyo qof aan isku kalsoonayn qof yaani liita ayaa jeesjees iyo waxa ka dhaqaaqa ilaahay subhanahu wa ta'ala sifooyinkiisu waa sifooyin dhamaystiran oo kaamilnimo ah nuqsaan ilaahay yaani kuma sifaysno marka ayagu hadii ay jeesjees waxooda uu yahay oo waan iska ciyaarayna waan ku jeesjeesayna ay leeyihiin ilaahay jeesjeeskaas ay muuminiintu ku jeesjeeseen ayuu ka abaal marinayaa ayaa loola jeedaa oo balaaqada ayaa waxa lagu yiraahdaa baab waxa la yiraahdaa al mushakala isu ekaysiin oo yaani waxa waa labada kelimo oo xagga lafdigana isaga eg xagga macnahana ku kala duwan xagga lafdiga isaga yihiin oo kuwana waxay dhahay mustahzi'un haddana waxay Allahu yastahzu xagga lafdiga iyo dhawaaqa kalimooyinku waa isku mid laakiin xagga macnaha markii la fiiriyo ay kala duwan yihiin ayagu waxooda waa sifo xun oo muuminiinta ay ku jeesjeesayaan oo ay ku qoqoslayaan ilaahayna sifadiisu waa sifo kamaal oo awood ayuu leeyahay kuwan muuminiinta ku jeesjeesay abaalkooda ayuu ka waraabinayaa ciqaab ayuuna marsiinayaa Allahu ilaahi ayaa yastahzu bihim jaazinaya oo jeesjeeska ay jeesjeeseen ka abaal marinaya wayamudduhum fi dughyanihim ya'mun wayamudduhum uziyadin fi dughyanihim xad gudubkooda iyo kibirkooda dhexdiisa ya'mahuna ayaga oo ku dhex wareersan ama ku indhala yani ilaahay ma hanuuninaya yani munaafiqiinta saa u dhaqantay ilaahayna uu abaal marinaya oo jeesjeeskood ayuu ku abaal marinaya waxaan ay ku jiraan ee foolxumada ahna ilaahay ka soo qaban maayo ee hor ayuu ugu sii wadi uu u ziyaadin ilaahay qofka sidoo hadba asaga u dhaqmo ayuu kula dhaqmaa
hadduu qof munaafiqnimo iyo akhlaaq xumo u doorto akhlaaq xumadaas ayaa horay loogu sii wada ilaa naarta uu kaga dhaco maxaa yeelay asaga ayaa ikhtiyaarkiisa ku go'aansaday wadadaas xun inuu qaado hadduu ruux intuu fikriyo wadadan kuma bixin doonte meel fiican raadi oo uu hanuuno oo ilaahay jidkiisa uu raaco ilaahay hanuunkaas ruuxu isa soo hanuuniyay ayuu ku sii hanuuninayaa oo uu u ziyaadinayaa ilaahay wuxuu yiri walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum yani kuwa ayaga hanuunay oo wadadii hanuunka soo raacay ilaahay hanuun ayuu u ziyaadinayaa taqwana wuu siinayaa walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kuwan marka maadaama ay mu'miniin ku jaasjaaseen munaafiqiin ay noqdeen ilaahay munaafiqnimadaas ka soo qaban maayo maadaama ayaga ay doorteen ويمدهم وزيادين أو كسي وذي في طغيانهم حد جذب كوذا يقاقوذا يعمهون أيجا أو إن دلا أيجا أو كوريسن سداس أي أهانايا أولئك كواسي الذين كوي أي أحدين اشتروا قتين الضلالة بعض النمو أي بالهدى هنون كوقتين يعني السيدة هذا بدي عاد لو يقان قفض مثلا ألعاب هيستو روح كلنا أو هيستو مثلا العق أو هيستو كلا بدل الشداس متكي يعني العق توتي wuxuu siinayaa midkii alaabta lahaa ayuu lacagtii siinayaa kii alaabta haystayna alaabtiisi ayuu kii lacagta siiyay ayuu siiyaa kuwan sidaas oo kale waxay sameeyeen ayagoo heli kara inay hanuun haystaan ayaa lacag ahaan ayaa waxay u isticmaaleen hanuunka ayay soo qaadeen markaas dhan hanuunkan ayaa waxaan rabnaa inaan ku bedelano sida lacagtaba badeeca loogu bedesho oo kale hanuunkan aan iska bixinaynaa baadinimo ayaan bedelkii hanuunka ayaan gashanaynaa marka munaafiqiintu waa sidaas way khasaareen ayagu faa'iido ay u mala inay qabaan laakiin khasaaro ayay qabaano ruux hanuun intuu helay oo iimaan waan ku dhawaaqay oo yiri aamanna billahi wa bil yawmil aakhir yiri hadana run aan ayna iimaankaas una ka ahayno intuu iska wareejiyay gaalnimo qaatay kaas uu khasaarsan yahay marka ulaaika kuwaasi alladina kuwi ayay ahaadeen اشتروا قتين الضلالة بعض النمت أي بالهدى هنونك كوقتين فما ربحت ما أين فائذ تجارتهم بضيع عضاضو لأن هذا مركي وحلا كلاقته يعني لبدا قفل وحكا لقدنا مدكر وحكا لو يجيب بهايهم بضيع عضو مركي قدنته الروح وحلا لقته الله لقته يعني بضيع عديسة فإذا أيو كهلا يا تجارة ديسو أما جناح سيسو ومد يعني ربح أوكاني كون مركي أي هنونكي لعج أهان أنت أبحيان أي بعض النمتكي بضيع أهان أسوقاتين كلا بدل شداس أرنتاس على بيع النوع عاص أولعي مد لقول ربحي مد لقول ليباني معها فما ربحت تجارتهم بضيع عضوذي أما جناح سجوذي مؤون فائذ وما كانوا من أي سنهانين مهتدين كوا هنون سنة معها محايا هنونكي وبسكب حيانه وكوا باذئة هنونكي أي ديبين بحين بدل كيسي قاتين بعض النما أي قاتين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أيضا حكاها ليسا هي آيات كلا يصوص عتبة منافقين تو ما دام أين مال موقف أين كنتو سين مؤمنين طبعا أين أهين يعني قال طبعا أين أهين مال رحيس أي جوغان والروح متلا يلا بالروح قفت حكوفي عنها إنه هالروح أهاضه أو مال لو قصو هقاقه هدي مؤمن أنقنا سي شرف لأمومن أنقضه هدو قالوا بنا سي عادي وقال أنقضه ومركاسي لك ربحوه قال كينا واكاس مؤمن كينا واكاس هدي لا إزدقالنا سي شرف لا إسود دقاله هدي له هشين أيضا اللي إسقيه الروح والبوحة وياهي محان كو هشين كرنا محان كو هشين كرنا اللي إسكو أقاده سيداس واك ربحوه لكن كي منافق أها ومد لحظة كجرو وحوليهي أنا أقول سيداس ميه لبضا ضأيانو لحيا مركا مؤمنين تبر كل جوغن وحوليهي إذن كان إذن أهي قال مر كل جوغن وحوليهي إذن كان إذن أهي والروح مركا يعني أنا اسكو كالصونينو مر والبوحو كعب سنايا إنو فضيحوبو مركا إلهي آياتان وحو نقول تلمامايا أما إنو قلت تشبيهنايا أما إنو قلت تصالينايا نفسيات كودا نمان كاس منافقين تاع هلك الروح اسكدغا إنو لبا روح أو كليهي أو دنا قال كا دنا مؤمن كا سو اسكدغا لبدا ودخايا حالة نفسية أي كسوغيين محايلة دد مطمئن أما حسلون معه marka muuqaalka ay u egyihiin ayaa waxaan loogu tashbiihinayaa arin yaani qofku uu dareemi karo xaaladda ay arintaas ay tahay waxa marka mathaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu waa kamathali alladhi ki oo kale ayuu la mid yahay istawqada shitay naaran dab munaafiqiintu wax mathalkoodu ama tilmaantoodu waa sidii nin dab shitay mathaluhum tusaalahoodu waa kamathali alladhi ki oo kale istawqada shitay naaran dab فلما أضاءت مركة أي افتيمسي ما حوله هريره سوحي أحاضي ذهب الله إلهي ولتغي بالنورهم افتين كودي يعني منافقين انت وحي لمدهن هبين مجدئة أو روب ودآيو مثلا أي الروح سئو يسغى إلى عليه حشرات كأي وحيابها خطرتها أيو دبش التمركة
dabkii markuu shitay oo u iftiimay oo hareerihiisoo dhan maalin cad oo kale ay u noqotay oo markaan uu is yiri aleelahay wixii kugu soo socdo waad iska arki kartaa yaa hal mar dabkii u shidnaa ayaa ka damay markuu ka damay soo noqonaa ruux in dhala oo khatar walba oo ku dhacday waxba aan iska arkeen ayuu noqonayaa munaafiqiintuna waa sidaas oo kale oo intay iimaan waan rumaynay dhaheen oo iftiin uu baxay haday hor u sii wadi lahaayeen ay jannada ku gali lahaayeen ayay iska damiyeen oo dib ayay u laabteen waxay la mid yihiin marka ruuxan dabka uu ka damay oo kale ayaa gadaal u noqoshadii ay iimaanka dib uga noqdeen kuwaas oo kale ayay la mid yihiin marka qofkaasi miyuu khasaaray mise wuu liibaanay way macnaa wuu khasaaray hadduu dabka uu shitay uu sii wadan lahaa oo una ka dami lahayn ilaa waagu uga bariyo iftiinkaas ayuu dhex fadhin lahaa laakiin wax yar markuu u iftiimay markii zam laga siiyey qofkaasi walwal iyo maxaa kugu soo socda ayuu ku noolaanayaa munaafiqiintuna iimaan ayaan leenahay haddana gaalnimaan dib u laabanay nalkii ayaa ka damay mugdigaas ay dhex fadhiyaan marka mathaluhu mathalkooda ama tusaalahoodu waa ka mathali alladii kii oo kale istawqada shitay naaran dab falamaa adaa'at marka ay iftiimisay maa xawluhu hareerihiisa wixii u ahaa markay u iftiintay ذهب الله إلهي وكلتك بنورهم افتين كودي وتركهم حوقتك في ظلمات مجديو لا يبصرون أيوة وحبا عن أركينهم صم ودقوليال يعني منافقينتو وحا لمديهين سيدا حق أين مغلين قف دقالة أوكالة قف دقالة لحظة بعضها هكو مغلين مركوا صم ودقوليال دقالة آن بكم أفلعان وهذا اللعان وأخرس يعني مهلايان يعني حق هدي الله شيء وما مغلايان haddii xaq ku hadal la yiraahdana way ka aflaayihiino xaqi kuma hadlaayaan waa bukmun waa aflaan waa hadal la'aan umyun waa indhalaan oo xaq kasta hadii hortooda la soo dhigo wax walbo ilaahay waxdaaniyadiisa diintan xaqnimadkeeda wax walbo oo cadeynaya markii la hor dhigo ma arkaayaan umyun way ka indhalaayihiin fahum ayagu la yarji'una ma soo laabanayaan gaalnimadan ay aadeen dib ugama soo noqonayaan oo islaamnimada kuma sugnaanayaan iimaanka يعني قلبه كما دغايو way aflaayihiin oo way indhalaayihiin marka fahum ayaga la yarji'una ma soo laabanayaan aw kasayib min as-samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun tilmaan kale ayaa hadana aayadan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo munaafiqiinti xaalkooda oo ku sifaynaya midan waa si kala loo dhigay waxa loo dhigay nafsiyadooda gudaha waxa ku jira yani waa dad walwal uu ku jiro maal walba waxay ka cabsanayaan in aayad intay soo degto la fadeexeeyo suuratul munaafiquun wa ilaahay ku leeyahay يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قيل والبا oo soo yeedha waxay u qaadanayaan in ayaga la haysto hatta waxa la hadeen geel uu ka dhumay geeriisi raadsanayo oo war hashaydi ya arkayay haday qaylada maqlaan malaha waxay leeyihiin aayad ayaa soo degtay oo waxay idin ka sheegaysaa yahdharu almunaafiquuna an tunzala alayhim suuratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim يعني منافقين waxay ka cabsanayaan mar walba oo ka digtoon yihiin aayad ayay ka sheekanaysa inay soo degto ay fadiixoobaan marka nafsiyaadka gudahooda walwalka iyo buuqa gudahooda kufran sida uu eg yahay tilmaan kale oo u eg ayuu ilaahay loogu tashbiihinayaa markaas waxa la yiri aw kasayibin munaafiqiintu waxay la mid yihiin aw kasayibin sidii roob oo kale min as-samaa'i samada xaggeeda ka ahaaday fiihi waxa dhaxdiisa ahaaday dhulumaatun mugdiyo wa ra'dun unkat wa barqun yahilaa يجعلون وحيلين أصابعهم فرهوضة في آذانهم دقاء يقشنايان من الصواعق دنبك أما جعض أما هو كدعايا دراديس حذر الموت جيري أي كعب صنايان والله إلهي محيط الله كوبا أيها بالكافرين قال هذا إلهي وأكوبايا هذا يكون وحي لمده النفسيات كالسيئين هبين روب ودعايو مركو روب كدعايا هبينكي روبك وصعدا ومجد وهبين روبك وحوة تامركا unkad ayuu wataa habeenkii unkadku waa markuu roobku da'ay sawaxanka weyn ee baxa hilaacaya hadana dhac kale ka sii jira markaas dadkii way naxayaan oo dhagaha iyo faraha gashanayaan unkadka dhacaya daraadiis cabsi ay geeri ay ka cabsanayaan kuwan munaafiqiinta ahna yaani waa sidaas oo kale quraankii iyo iimaankii ayaa yaani mar ayaa soo maray markaas waa xaqii roobkii oo kale waa wax fiican oo in lagu qaboobo ay ahayd kuma ayna qaboobine dib ayay uga laabteen haddana way cabsanayaan waxay leeyihiin amaad ka shifataan oo leedin fahmaa nafsiyadooda marka unkadkii wax u eego naftoodii wadnahoodii ayaa boodboodaya yani muuqaalka iyo suurada ay yihiin ayaa waxaan loogu tashbiihinayaa sida ruux habeen roob uu ku da'aayo oo unkad iyo hilaac iyo bug iyo bac iyo sawaxan iyo baashan danabka la yiraahdo ama jacda la yiraahdo meesha ku dhacda geedaha goynaysa ee guryaha duminaysa xaaladaas oo kale ayay u egyihiin gudahooda waxa ka shanqaraay maxaa yeelay waa qof aan isku kalsoonayn oo hal qof aan ahayn oo laba qof ah marka nafsiyad degan ma haystaan munaafiqiintu marka waxay leeyihiin oo kasaybin si roob oo kale min as-samaa'i samada ka yimid oo fihi dhaxdiisa u ahaday dhulumaatun mugdiyo wa ra'dun iyo onkod
وبرق يهلاع يجعلون وحيلين أصابعهم فرهضة يعني فرها فودودا أي دقاها قشانا في آذانهم دقوهودا من الصواعق جعب دراديد أما الدنبك دراديس باشنا صورنا على روبك لا صورنا على جيدها جويسة قريها الدميسة ساس وحي دقاها فرها وقشانا وحيتها وحذر الموت جيري أي كدكتوين عبسي جيري أي كقبان والله إلهي محيطنا الله كوبا أيو هذا بالكافرين قال هذا إلهي وأوكوبا يكاد البرق هلاعو وحو سيغايا يعني الصورة دي ولي waxaa sii socota roobkii xilliga habeenka da'ay ee lagu miisaalinay munaafiqiintu xaalkoodu sida uu yahay yakaadu wuxuu sigaaya albarqu hilaacu yakhdafu inuu dafa absaarahum indhahooda kullama adaa mar alla markuu u iftiimiyo lahum ayaga mashaw fihi way ku soconayaan dhexdiisa wayda adlama hadii uu mugdiyooba calayhim korkooda uu ku mugdiyoobana qaamu way istaagayaan walaw sha Allahu ilaahi haduu doono la dhahaba wala tagaaya بسمعهم مقل كوضا أيو إلهي لتقايا يو أبصارهم أرق كوضا أيو إلهي لتقايا إن الله إلهي على كل شيء وحولبا قدير وأوكرايا ولتشبيه يا سيس عضاء ومنافقين تا لقم مثالنا لو سوء حالك أي كسوينين waxay la mid yihiin sidaas mesela markuu roobkii da'ayo oo kale hilaa usuu xoog u leeyahay wuxuu ku siganayaa indhaha inuu ka qaado laana xillada qaarkood markuu roobku da'ayo kale markuu si xoog leh hilaa uu dhaco yani daqiiqada waxa laga yaabaa ruuxu inuu indhihiisa waxba arki waayeen waxa hormaray yani iftiinka xoogiisa marka yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacu yakhdafu inuu dafo absaarahum indhahooda markii indhihi uu dafo marka hadana hilaaci dhac uu yiraahdo oo asaas uu xoog badan yahay ayaa sida uu noqonayo oo dadku ay noqonayaan markuu roobka saas oo kale u daayo laacna uu jiro waxa kullama adaa mar alla markuu uu iftiimiyo lahum ayaga hilaac markuu intuu mar kale ku celiyo hadana oo iftiin kale uu ku celiyo kullama adaa lahum mar alla markuu uu iftiimiyo mashaw fihi way ku dhex soconayaan oo hilaaci waxa laga yaabaa ruux inuu dhowr talaabo uga faa'iideysto intuu hilaaca yani una dhamaanin inuu ka gaarsiyo oo laba god saddex god oo markaas hortiisa intuu ku arkay inuu uga boodo ayaa dhici karta kullama adaa lahum mar alla markii uu iftiimiyo mashaw fihi way ku soconayaan wa idha adlama calayhim hadii uu ku mugdiyoobana oo hilaaci yani usan marka la soo noqonina qaamu istaagayaan laana wax ka horeeyo god inuu yahay inuu dhagax yahay ma yaqaanaan waxay suugaan bal hadii hilaac marka la ku celiyo sug markuu ku celiyo dhaqaaqi kale lahayn marka munaafiqiintuna waa saas oo kale maadaama yani ay markii hore ay iftiin u baxayo islaamnimadan rabnaa aamanna ay dhaheen soo aamanna inay ku sii socdaan lama rabin wax yar markay aamanna yiraahdeen ba isla markii hadana gaalnimada ay dib u noqdeen marka waa saas oo kale ay la mid yihiin marka wada adlama calayhim qaamu walaw sha Allahu ilayhi haduu doono la dhahaba wuxuu la tagaaya bisam'ihim maqalkooda iyo absaarihim aragooda inna Allaha ilahi ala kulli shay'in wax walba qadirun alla awooda ayuu ahaaday marka intaas waxa inoogu dhamaaday marka dadka qaybihii ay u kala baxayeen aan soo khulaasayn ama aan soo gunaanadno dadka adduunyada marka la joogo hab dhaqankoodu quraanka suuradan suuratul baqara la yiraahdo sidoo ilaahay inoogu xusay subhana saddex ay u kala baxeen waxay u kala baxeen qayb leeyahay almu'minuun oo dhab ah ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan ah iyo qolo kale oo la yiraahdo gaalo ulaa'ika humul kaafiruuna haqqan ayagana ah oo dhab ah iyo kuwa labadaas midna aan ahayn oo munaafiqiin la yiraahdo waliba waxa aad loo faahfaahiyay oo in badan aayada lagu sheegay munaafiqiinta maxaa yeelay waxa meel yani aan ku toosaynin meel loogu soo hagaagay aan lahayn waa ayagana in la iska jira ayaa mudan maxaa yeelay qof mu'minan wax ka dhibi maayo mid gaalana waad iska ilaalinaysaa oo waxba idin kuma isku jiro laakiin mid aan labada dhinac midna jirin oo marna adiga kula jooga marna gaalkii la jooga kaas meel la geeyo male abaalkiisuna wuu ka xanuun badan yahay gaalka caadiga ah meesha iska taagan ee wixii sacadaystay inkastoo gaalkaas naftiisa in waxba oolin oo cadaab kulul uu galaayo laakiin cadaabkaas hadana kan hoos sii maraaya waa munaafiq suu ilaahay yiri innal munaafiqiina fi ad-daraki al-asfali min an-nar ولن تجد لهم نصيرا قال هذا أيها كجوج جوجسنيس بحش الضبك نارتا أيها لوجو جلايا قال هذا كسي كل استاجيسا عقاب كاسوحي تيستانا وموقف العانتي أي مال راعوين مركز سيدا صحة في عنه وحيتها مركز سا وركن اللي وعدهم لبضن قيبت قال هذا يا منافقين توحفي عمها نار أي قوة أرور دونا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قوة مؤمنين كبت بعد النار تاس إن كواس تلمامه لقصة تلمامه كواس إنه الروح والبصير وقام من نقول لها وياله تاسنا الدنيا آخرنا وكل بنايا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هي تلمامه كلا أبدا وإله مؤمنين تأكو أماني روح والبصير كواس وقام من نقول لها أكد ذلك درس جنمانتا أنت سيكون جاهد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.